Ku soo dhawow meeraheena orbitka ah oo si qurux badan leh oo ku xayiran baaxadda bannaan. Dhulka iyo heerkulka kala duwan ee adduunka. Cimilada dunidu waxay leedahay kala duwanaansho weyn oo u dhexeeya kulayl iyo qabow, taas oo asal ahaan ka timaada qaab dhismeedka kubadda dhulka iyo sida ay ugu kala duwan tahay meelo kala duwan. Sababaha asaasiga ah ee keena kala duwanaanshahan waa isku darka dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin qorraxdu sida ay u shiisho dhulka, dhulbaraha iyo wareegga dhulka ee qorraxda ku xeeran. Sababaha asaasiga ah ee keena kala duwanaanshahan waa isku darka dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin qorraxdu sida ay u shiisho dhulka, dhulbaraha iyo wareegga dhulka ee qorraxda ku xeeran. Fahamka qaab dhismeedka kubadda dhulka waxay muhiim u tahay in la garto sida cimilada u shaqayso. Dhulku wuxuu leeyahay qaab dhismeed kala duwan oo ay ku jiraan buuro, baddo iyo dooxooyin, kuwaas oo dhammaantood saamayn ku leh sida kulaylka iyo qabowgu ugu kala qaybsamaan meelo kala duwan ee dunida. Dhidibka dhulka oo ku meeraysan waxay si weyn u beddeshaa qaybinta kulaylka. Tani waxay dhacdaa sababtuna tahay isbeddelka xagasha qorraxdu ku shiisho dhulka inta uu meeraysanayo, taasoo keenta in qaar ka mid ah meelaha dhulka ay helaan kulayl badan ama qabow badan xilliyo kala duwan. Dhulku wuxuu saameeyaa kala duwanaanshaha heerkulka adduunka iyadoo la eegayo sifooyinka gaarka ah ee juqraafi ahaan. Meelaha ku dhow dhulbaraha waxay badanaa helaan heerkul sare sababtoo ah waxay si toos ah u helaan shucaaca qorraxda, halka meelaha u dhow labada dhinac ee cirifka ay badanaa noqdaan qabow. Dhidibka dhulka oo abuuraya xilliyo kala duwan waxay ka dhigan tahay inaannu la kulanno isbeddelo cimilo oo la xiriira dhaqdhaqaaqa dhulka iyo sida uu qorraxdu u shiisho. Tani waxay keentaa in meelo kala duwan oo dhulka ah ay maraan xilliyo kulayl badan iyo kuwo qabow badan, taas oo ah sababta aan u leenahay xilliyo sida xagaaga iyo jiilaalka. Xilliyada sanadka waxay saamayn weyn ku leeyihiin qaybinta tamarta qorraxda, taas oo abuurta kala duwanaansho cimilo. Xilliga qaboobaha iyo kulaylaha, tamarta qorraxda ee gaarta dhulka waxay ku kala duwan tahay xagga juqraafi ahaan, taasoo keenta isbeddelo heerkul. Qaar ka mid ah meelaha dhulka waxay yihiin ka kulul ama ka qabow kuwa kale sababo la xiriira sida ay ugu kala dhow yihiin ama uga fog yihiin dhulbaraha. Heerkulka waxaa sidoo kale saameeya joogga badda, dhulka iyo hawada ku xeeran. Heerkulka kala duwan ee dunida waxaa si weyn u saameeya dhidibka dhulka. Isbeddelka xagasha dhulka ku aadan qorraxda inta uu ku meeraysanayo ayaa abuura heerkulka kala duwan, taasoo muujinaysa muhiimadda dhidibka dhulka ee cimilada. Isbarbardhigga kulaylka iyo qabowga ee meelaha kala duwan waxaa badanaa lagu sharaxaa doorka qaab dhismeedka dhulka. Buuraha, badda iyo saxaraha waxay leeyihiin saamayn gaar ah oo ku saabsan sida cimiladu u kala duwan tahay juqraafi ahaan. Dhulku wuxuu tamarta qorraxda ku hagaa habab kala duwan, taas oo saamayn ku leh cimilada. Tusaale ahaan, biyaha iyo dhulku waxay nuugaan, kaydiyaan kulaylka si kala duwan, taasoo keenta in cimiladu noqoto mid aan isku mid ahayn meelaha kala duwan. Dhulka oo ah kubad waxay leedahay xilliyo kulayl iyo qabow oo kala duwan, kuwaas oo si toos ah ugu xiran sida dhulku ugu meeraysto qorraxda. Sida ay dhidibku ugu teedsan yihiin qorraxda ayaa go'aamiya inta kulayl ama qabow ee gaaraya dhulka, taasoo keenta in xilliyo kala duwan la kala saaro. Fahamka qaab dhismeedka kubadda dhulka waa muhiim si loo ogaado sida cimilada loo saameeyo. Dhulka oo leh buuro, bannaano iyo baddooyin kala duwan waxay saamayn ku leeyihiin sida tamarta qorraxda loo qaybiyo, taasoo keenta isbeddello cimilo oo kala duwan. Dhidibka dhulka oo ku meeraysan ayaa abuura isbeddel ku yimaada qaybinta kulaylka, taasoo keenta in qaar ka mid ah meelaha dhulka ay ka kululaadaan ama ka qabowaadaan marka loo eego kuwa kale. Tani waxay muujinaysaa sida dhulku u hago tamarta qorraxda. Heerkulka kala duwan ee dunida waxaa si weyn u saameeya dhidibka dhulka. Meelaha dhidibka u dhow qorraxda waxay helaan kulayl badan halka kuwa dhidibka ka fog ay helaan qabow, taasoo abuurta kala duwanaansho heerkul oo ballaaran. Isbarbardhigga kulaylka iyo qabowga ee meelaha kala duwan wuxuu muujinayaa doorka qaab dhismeedka dhulka. Dhulka oo leh qaabab kala duwan sida buuraleyda iyo dooxooyinka ayaa siyaabo kala duwan u saameeya sida kulaylka iyo qabowga loo qaybiyo, taasoo keenta cimilo kala duwan. Maxaa keena in meelaha qaarkood ay ka kululaadaan ama ka qabowaadaan xilliyo gaar ah? Sababta ugu weyni waa dhaqdhaqaaqa dhulka iyo sida uu qorraxda ugu meeraysto.
Meelaha dhulka ee qorraxdu toos ugu dhacdo waxay noqdaan kuwo aad u kulul, halka meelaha qorraxdu si dadban uga dhacdo ay noqdaan qabow. Kala duwanaanshahan heerkulka wuxuu abuuraa xilliyo kulayl iyo qabow ah oo kala duwan. Sahaminta sida dhulka oo dhidibaysan u abuurto jawi cimilo oo kala duwan waxay muujinaysaa in qaab dhismeedka dhulku uu door weyn ka ciyaaro. Dhulka oo wareegiisa dhidibka ah ku meeraysanaya ayaa keenaya in meelo gaar ah ay xilliyo gaar ah la kulmaan kulayl badan ama qabow, taas oo saameyn weyn ku leh cimilada guud ee meeshaas. Dhulka iyo dhidibkiisa, fahamka saamaynta ay ku leeyihiin kala duwanaanshaha heerkulka waa muhiim. Dhulka oo dhidibka ku wareegaya ayaa keena isbeddello heerkul oo joogto ah, kuwaas oo sababa in meelaha qaarkood ay xilliyo gaar ah kululaadaan halka kuwa kalena qabowaadaan. Kala duwanaanshaha cimilada adduunka, qaab dhismeedka iyo dhidibka dhulka waxay si toos ah ugu xiran yihiin isbeddellada cimilo ee aan aragno. Tusaale ahaan, dhulka oo dhidibkiisu u janjeero ayaa keena in iftiinka qorraxdu u qaybsamo si aan isku mid ahayn, taasoo keenta kala duwanaanshaha cimilada. Dhulka sida qaabkiisu u saameeyo heerkulka iyo cimilada guud waa arrin xiiso leh. Dhidibka iyo dhulbaraha dhulka oo isbeddelaya ayaa sababa in meelo gaar ah ay mararka qaarkood kululaadaan halka kuwa kalena qabowaan, taasina waxay si toos ah u saamaysaa cimilada dhulka oo dhan. Barashada sida dhidibka dhulka u go'aamiyo qabowga iyo kulaylka meelo kala duwan waa muhiim si loo fahmo kala duwanaanshaha cimilada adduunka. Dhidibka dhulka oo ah xagasha ay u meeraystaan qorraxda waxay si toos ah u saamaysaa heerkulka meelaha kala duwan. Tani waxay keentaa in meelo qaarkood ay noqdaan kuwo aad u kulul halka kuwa kalena ay noqdaan kuwo qabow, taas oo abuurta kala duwanaanshaha cimilada la arko maanta. Isku soo wada duuboo, saamaynta dhidibka iyo qaab dhismeedka dhulka ku leeyahay cimilada adduunka waa mid aan la dafiri karin. Dhidibka dhulka iyo qaab dhismeedkiisa waxay si wada jir ah u hagaan qaybinta tamarta qorraxda, taasoo ugu dambayntii saamayn weyn ku leh heerkulka iyo cimilada guud ee meelo kala duwan oo dhulka ka mid ah. Fahamka arrintan waa fure u ah saadaalinta iyo la qabsiga isbeddellada cimilada ee mustaqbalka.